marka sheekadan waxaa ka baranaynaa wax walba kugu dhaco. Salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Asxaabta qadarinta iyo qiimaha naga mudan oo halka aad daawaneysaan waa qalbi walacay. Waxaan idin leeyahay soo dhawaada waxa waaye marar badan waa kala maqleen. Marka haddana waa isku soo noqonay asxaabteeda. Maanta waxaan idin wadaa sheeko yar. Sheekadaas oo aan aad ugu helay. Marka idinkana waxaan rabaa in sheekada aad ila wadaagtaan. Sheekada waxay ku bilaaban doontaa sheekada boqor iyo taliyihiisa. Bari baa waxaa jiray boqor iyo taliyihiisa. Boqorka wuxuu lahaa la taliyaal badan, laakiin wuxuu aad u jeclaa hal la taliyo oo asaga ugu dhawaay. Waxaa dhacday boqorkii la taliyihiisa mar walba wuxuu ahaa la taliyaha wax walba ku soo kordha boqortooyada ku soo kordha ninka wax walba fikrad ah inuu asi weydiiyo. Si asina oo wuxuu dhihi jiray mar walba wax walba waa qeer. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa dhacday boqorkii iyo la taliyihiisa in ay u baxaan ugaarsi markay aadeen oo ugaarsida u bilaabatay ayaa boqorkii wuxuu watay oo ku ugaarsanayay ayuu farta iskaga jaray, macnaa suulka iskaga jaray. La taliyihii ayaa waxaa su'aal weydiiyey boqorkii oo dhahay dhiig badan ayaa iga baxayo, sababta maxay tahay? La taliyihii wuxuu dhahay waa qeer. La taliyihii markuu dhahay waa qeer, boqorkii wuxuu u maleynayay in uu la taliyaha uu ku yahay cadow. Boqorkii iyo la taliyihii waxay ku soo noqdeen goobtoodii. Taliyihiisa la xiro. Markii la xiray la taliyihiisa xabsi la geeyey. Maalmaha ka mid ah ayaa boqorkii haddana wuxuu u baxay ugaarsi. Wuxuu ugaarsadaba wuxuu ka baxay qaybtii oo ugaarsiga loogu talagalay, wuxuuna galay qayb ay joogaan dad cawaan ah. Goobtaa waxaa ku sugan dad cawaan ah. Marka boqorkii waa la qabtay, dadkii cawaantii ayaa qabtay. Markay qabteen boqorkii waa la xiray. Waxaana la go'aamiyey, dadkii cawaantii ay ku go'aamiyeen in ninkan asiga la qalo, ay soo qabtaan ay qalaan. Marka waxaa dhacday boqorkii asiga loo qali rabo ayaa ninkii ugu weynaa cawaanta wuxuu u baaray boqorkii, wuxuuna arkay inuu suulka go'an yahay. Marka waxaa la kan suulaa ka go'an, marka hal iska sii daayo. Boqorkii asuu faraxsan la soo daayay. Marka la soo daayay isla markiiba wuxuu booqday qaybtiisa meesha dadka ugu xirnaa asiga. Wuxuuna dhahay hala soo daayo la taliyahaygii. La taliyihii marka la soo daayay wuu u imaaday boqorkii, wuxuu dhahay la taliyow fikirkaaga iyo maxaad u bedeshay ra'yigaaga? Wuxuu dhahay maanta waxa igu soo dhacday qisadaas waxaan la kulmay dad cawaan ah, laakiin waxa ku soo badbaaday maalintii hore suulka iga go'ay awgeed aan ku badbaaday. Adigna waxaad ii sheegtay inay qeer tahay. Marka wuxuu dhahay aad u maasan tahay, waxaana ii sheegtay inay maalin qeer ahayd. Maalinta suulka hadduusan iga go'een maantay maana badbaadeen. Waxaa kaloo hadlay oo boqorkii u mahadceliyay la taliyihiisa. Wuxuu dhahay boqor waad mahadsan tahay, maxaa yeelay anigaba waxaad iga badbaadisay arrin igu soo wajahnad ayaad iga badbaadisay. La taliyihii markuu u dhahay boqorkii wuu yaabay, wuxuuna weydiiyey sababta macnaha aan ku badbaadiyey maxay tahay, waa aniga ku xiray igu mahadcelinaysid. Wuxuu dhahay waxaan kugu mahadcelinayaa maanta boqor, haddii aniga adi wada ahaan lahayn oo aan is wada raaci lahayn, maanta adiga suul ayaa kaa go'an, laakiin aniga suul igama go'neen, aniga ayaa la iqali lahay. Boqorkiina wuu yaabay, wuxuuna dhahay waxaad tahay qof aad u wanaagsan. Marka qisadaas ayaan rabay maanta inaan idinla wadaago asxaabteeda. Marka qisadana halkaas ayaa kusoo gabagabowday. Marka sheekadan waxaa ka baranaynaa wax walba kugu dhaco inay tahay wax qeer ku ah, oo maxaa yeelay wax kale inay kaa badbaadiyaan laga yaabaa. Marka asxaabteeda qaaliga aad iyo aad baad u mahadsantihiin. marka halka aad daawanaysaan waa qalbi walacay. Please subscribe, like, share, comment intaba adigan ka sugnaa. Marka waxaan leeyahay kulan dambe oo wacan oo wanaagsan.